laguna tilmaamay inuu yahay mid sharci darro ah oo awood aysan u lahayn maamulka Soomaaliland inuu u saxiixo badda Soomaaliya ama saldhig ciidan ka siiyo. arrimahaasi runtii dadka Soomaaliyeed walwal xoogan iyo taariikh hore oo duugowday ayay dib u soo xusuusiyeen iyo damcii Ethiopia ay kala ahayd dalka Soomaaliya inay qabsato gaar ahaan baddiisa inay gaarto. hadda meesha loo saxiixay la sheegay in loo saxiixay waxay tahay meesha ugu istiraatiijisan badda Soomaaliya oo Baaburmandab waa dhuuntii badweynta 3,300 oo kiiloomitir ah meeshii ubuucda ahayd oo hunguriga u ahayd oo istiraatiijig ahayd ayaa loo saxiixay. taasi waxay ka dhigan tahay xadgudub qarannimada Soomaaliya iyo madaxbannaanideeda. waxaan runtii bogaadinaynaa dadka gobollada waqooyi ee Somaliland degan ee reer Boorame, reer Burco, reer Lugahay, Zeylac, reer Hargeysa iyo dhammaan deegaamada iyo degmooyinka dadka Soomaaliyeed odayaasha iyo haweenka iyo dhalinyarada ay runtii ka muujiyeen dareenkooda. sidoo kale mas'uuliyiintii iska casilay xilalka ee wasiirada ahaa ee arrintaasi u cuntami weyday oo wasiirkii gaashaandhiggu ka mid ahaa isagana runtii waan bogaadinaynaa. waxaad qaadatay tallaabo geesnimo leh. waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo shacabka magaalada Muqdisho oo ku dhawaaqay banaanbax maalinka Khamiista ah subaxii in la isku soo baxo dhammaan jidadka waaweyn ee magaalada Muqdisho, shaqooyinka la joojiyo, businesska oo dhan la joojiyo, la iskuna soo baxo hay'adaha dawladda iyo dhammaan shacabkuba inay isugu soo baxaan banaanbixii milyooniga oo arrintaasi lagu diidan yahay. dawladda Ethiopia madaxdeedu runtii talaqbud xoogan iyo jahwareerin iyo xasilooni darro geeska Afrika ayay ka shaqaynayaan. shacabka Soomaaliyeedna runtii waxaan kaloo bogaadinayaa dadka dibadaha Mareykan iyo Sweden iyo meelaha kaleba ee arrintaasi ka dhiidhiyay. waxaan leenahay kow arrintu ma joogto. waad ma arkayseen shalay kaniisadaha Ethiopia Orthodox-ka oo leh Zeylac baan qof u magacaaban. arrintani way ka weyn tahay heshiis, way ka weyn tahay deked. waa arrin dhul iyo diin iyo dad iyo dalba la isku qabsanayo. arrintaas runtii dareen xoogan bay leedahay. welina Ethiopia waad u jeediin inay ku sii indha adag tahay dariiqaas qaldan ee qaaday. sidaas awgeed maalinka Khamiista waxaan ugu yeeraynaa oo sii xoojinaya maadaama wasiirka arrimaha gudaha aan ahay in la isugu soo baxo magaalada Muqdisho oo dhan laguna muujiyo maalinkaas dareenkeena kan ugu sarreeya. madaxda dalkuna waxaan rajaynaynaa inay ka soo qayb geli doonto. waxaan runtii sidoo kale dowlad goboleedyada dalka ka dhisan oo runtii mowqifkooda musharrafka gaaray markii arrintan ay dhacdayba mowqif fiican ka soo saaray ayagii xukuumaddu isla soo saaray in gobollada Soomaaliya iyadana dadkeedu iyo maamulada jiraba waxaan ugu baaqaynaa inay dareenkooda muujiyaan. habeenkii heshiiskan la saxiixay waad arkayseen deegaamo Ethiopia ka mid ah oo laga dabaaldegay. sidaas waxaa loo dabaaldegayaa waa dhaxalkaagii, waxaa loo dabaaldegayaa waa dhulkaadii. waxay dadkaasi u dabaaldegayeen waa inay heleen waxay ku taamayeen 600 sano oo si fudud nin Muuse Biixi ugu saxiixay. waxaan runtii ugu baaqaynaa marka dhammaan gobollada dalka iyo caasimadda oo Khamiista uu ka dhacayo banaanbaxaas iyo dalka dibaddiisaba in la isku soo baxo ummadda Soomaaliyeed aysan yaraysan. abi